waxaan u sheegayaa nimanka daarood ee soo ciidaminaya daarood wuxuu ka yimi haday garanayaan bayt al-asiir buu ka yimi soo dad waxaad garatay maha bayt al-asiir buu ka yimi dhulbaante waninka la dhashay reer Sheekh Isxaaq waninka dhulbaante geed saaran baa la arkay oo diyaarad helicopter miyaa saartay war Sheekh Isxaaq inaadeerkii buu ahaa oo dad ilmaadeeraynay markaana casnimada idin haysaa waxa weeye tagaratay bal maabka eega maabkaasi waa maabkii Soomaaliya hawd iyo reserve area lagu raadinay jirin waaniga idin tusaya documentskiini iyo xorriyadiini dhulbahantow ragan tolaya daarooday lehna anigu ma qaba inay daarood ma garanayaan daarood meeshu ka yimi taariikhdii daarood haddaad garanaysaan ummadatan uma idin biliyoote hadda soo waxaad garatay ma marka dhulbaantii la fahmi jiray aanu naqaanay imika aniga shaashada igama muuqdaane niman dagaalyahan oo dagaal doona oo ummadda burburinaya ayaa ii muuqda kuwaasina khayr allaaliye khayr ay keenayaan dhulbaantow oo ay idii keenayaan wallaahi inaanay jirin iyo billaahi tallah anigu siyaasi dhowr iyo 30 sanadood baan diblomat ahaa oo la talinaya Umar Carte Qaalib oo siyaasigii adduunyada ahaa naxariistii janna Allah siiye balka warninkayga ninka la sii talinay what do you think shacbi baan ahay shacbiga Somaliland baan ahay waxaan mathilayaa waa shacbigayga nabad iyo caanaan habeenkii ku soo toosa ragna waxay igaga dhimanayaan xuduudda oo ay dhaawacayeen waa inaynu hadaynu tujaarta Somaliland iyo shacbiguba lacag muayana laysa saaraa oo sida loogu soo gurayo ummadda kale lacagta militarigeena loo guraa oo maatadooda iyo kuwooda agoomaha ah iyo kuwa dhaawacaba waa in loo guraa lacag lala berber joogsado ari iyo geel iyo bariis intaba nimanka tujaarta ee lacagta meelaha geliyo soo saara waa maalinteedii dagaal baad adeer ku jirtaa dagaal baanu ku jiraa intaasan kaga